Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muuqaal cusub walaaladeyda. Insha Allah maanta waxaan sameyn doonaa quraac ama casariye simple ah oo aad u fudud. Meesha hadda waxaan kusoo shubtay weelkaas wax yar oo caano ah. Waxaan ku shubanayaa 2 xabo oo ku ridanayaa 2 xabo oo ukun ah. Intan waxa yaalo 5 xabo ama 6 xabo camal oo toast ah ama slice rootiga slice ka ama ismarisa u taqaanidba. Magacyo badan yahay. Waxaa ku darayaa 1 qaado oo buuxdo oo sonkorta shiidan ah. Sonkorta shiidan sonkorta caadiga way ka macaan yartahay sonkorta guriga ku taala la shiido. Haddii rabtid mid diyaarsan waa soo gadan kartaa. Hadda waxaan ku darayaa 1 qaado oo qirfo ah. Waa isku garaacaya wax kale kuma dari doono insha Allah ilaa aan ka soo dhameeyo. Saxankii wuu ugu yaraaday saxan balaaran ku soo shubtay sidaas ugu celcelinaysa ilaa xooga uu ka jilco rootiga. Kadibna waxaan isla aadi doonaa birta insha Allah. Idima tusi karo inta aan birta ku riday laakiin markaan saaro ayaan tusi karaa insha Allah sababtoo ah kaamirada iga fog tahay. Hadda birta waxaa ku soo shubay wax yar jab yar oo batar ah ku soo riday. Waa kaas rootigeena labada dhinac ka dhigidinaya. labada dhinac buu ku gaduudanayaa waa sugeynaa insha Allah. Waa kaas dhinaciisa kale tan sidaas ayuu noqday inaa fahantiin ayaan rajeynayaa. Qaybta kale ku soo ridi doonaa sidiisana waa ku cuni kartaa jilaaca ku dhax qaadada leeyo goynaysa xataa muu baahno. Hadda waxaa ku soo shubay tufaax iyo moos adiga waxaa jeceshahay ku darsan kartaa. Kadibna sokorta 1 qaado sokor shiidan ayaan ku daray sokorta hadeeto. Kadibna caanaha macaan 1 qaado waxaa ku soo qasay maxaa la dhahay caano kale 1 qaado caano macaan iyo 1 qaado caanaha caadiga ah ku soo qasay. Kadib waa kor kaga shubay sidaan quruxda badan oo ku soo baxo ku casriyeyn kartaa. Koob qaxwona oo qaadan kartaa ku dhamaan insha Allah wuxuu diiday malahan soo bixi waa cuni kartaa. Waxaan leeyahay mac salaamo.